والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوديدا أولها جود قاعدين كي تكنولوجيا ده قاسمها جوديا دمان بهذا ميدياها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة كوباد وعن إله بقى مهال مركل بعض وحنا مهاد علينا يا جوديدا وقدر دستورية حبين كستوك تحسن حكومة ده إنك جوديدا ويا كرتون بقوله بقى مركوين نوع يرين يرمدوا دي بانكون من ماشان runtii waxaan iska wareysanay xogaha guud ee wasaaradda iyo qaab dhismeedka wasaaradda wixii qorshe noo yeelaan wal balaanka sanadkan 2022 iyo wixii howlqabad ee noo socda waxa kaloo aan wax iska weydiinay masiibadii nagu dhacday ee suuqa waaheen oo isleenahay waxay noo tahay cibro iyo 10 aynu wax ka barano si fiicanna waan isku fahanay qaranka iyo dawladuna waxa weeyaan runtii waxaan rajeynayaa waxaynu ka soo wada jeedinaa hal meel waxa kale oo aan jecel lahay duruuf kastoo timaada in ummaddu midowdo institutionka dawlad iyo xukuumad baa jirta intaba waxa madaxa u ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagaana mandate-ka ugu sareeya hadday noqoto dawladda iyo hadday noqoto xukuumadda labadaba marka runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rajeynayaa inaanu sida u wada shaqeynayno si fiican u wada shaqeyno waxa jira shuruuc iyo xeerar qabyo ah oo wasaaradda ugu jira qorshaha sanadka 2022ka waana waxa la garan in la dejiyo oo kamid yahay xeerka building code-ka amba dhismaha qaranka oo ah xeer muhiim ah oo dhismayaasha inta badan waxa ay u dhisayeen si iska ah oo aynu bariga hore u dhisi jirnay waxa ka dhiman qaybta loo yaqaan fire-ka iyo safety-ga marka runtii waxaan jecel lahay in xeerkaana nagala shaqeeyaan xeerka dhulka laftiisana inay nagala shaqeeyaan inaanu jecel lahay xeerka dhulka magaalooyinka maamulka magaalooyinka xeer 17 diina inaanu amendment ku sameeyno marka runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa odayaal mudakara waa engineer xirsi mala xildhibaano baad u taqaanay waa structural engineer waa nirka jaamacadda Hargeysa wax ka dhigi jiray wana shuruucda iyo qaybta dhismaha aad u yaqaana marka runtii waxaan dareemayaa inuu yahay dadka xildhibaanada ugu mudakarsan ee golaha baarlamaanka ku jira aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh xildhibaan maxamed oo hadda hadlayna wuxuu sheegay in shaqadeynta suuqa ay horeba u sameysnaydeen haddii ay hore u sameysnaydeen maxaa sameynaysaa anuu xildhibaan maxamed ma jawaabayo maxamed ma jawaabi karo wuxuu yirina ma ogi laakiin waxaan doonayaa inuu sheego xilka iyo waajibaadka wasaaraddu wuxuu ku qoran yahay xeer 2015 qodobkiisa 4 iyo xeer 01 xeerka kala xadeynta xukuumadda iyo hay'adaha dawladda qodobkiisa 30 wuxuu noo waajibin ma qabanaynaa waxaanu noo waajibin qaban mayno mara jecelidan in aan ila jooginba wuxuu yiri aanan ogeyn inaan ka jawaabo waad mahadsantii شغله قادم في دولته هؤلاء كلهم شغله وحوين شغلات هنا لكن waxa ismaha suuqa dowladda balaadi waa ka haboonaanta iyo shaqadu kala duwantay hadii sheego si waafaqsan qodobka 14aad ee xeerka maamulka gobolada degmooyinka iyo qodobka 110aad ee dastuurka qaranku labadu wuxuu oranayaa dawladaha hoose ama maamulada gobolada degmooyinka waa qayb ka tirsan xukuumaduna waa isku mid waa institution isku mid ah qofka sana mandate buu leeyahay waxa akhriyo doontaan xilalkii waajibaadka wasaaradda iyo dawladda oo kale leeyihiin qofna dhaafin maayo way wasiir hadaan hal soo weydiiyo sharcigu wuxuu ka siinayo wasaaradda hawlaha guud waxa weeyaan meesha mashquuleyso shaqadana waxa la sheegayaa meesha mashquuleysan tahay oo wadooyinka ay ka baxsan yihiin haddii baan shaqadeysaan oo shaqada aad keentaan waxaad ku ekaanaysaa shaqada aad meesha keenteen waxaad doonaysaa inaad gacanta ku haysaan horta waxa jirta faham darro guud oo ina haysata bilaadkuna waxaanu garan hadduu ka hadlo waa dhibaato nashqada wallaba loo qaybiyaa marna waa master plan marna wax loo yaqaan engineer design baa jira oo ka bilaabma marka ugu horeysa in la sameeyo wax loo yaqaan geotechnical report lagu xigsiyo structural design dabadna marka saddexaad stage-ka saddexaad u yimaada qorsheyntu marka hawshaasina waa hawl u baahan engineering waxaan jecel qofku wuxuu garanay inuu weydiiyo waxaan garanayay weydiiso ma fiicna doorkaygu wuxuu ku qoran yahay xeerarka dastuurka bulshada oo cadeeyo
wuxuu ku qoray qodobka 4 ee xeer 7/2015 iyo xeer 0/2018 qodobkiisa 3 ay ku qoray halkaas uu ka eegay cid u baahan waa 13 mandate wasaaraddu leedahay halkaas aan ku qoray cid u baahanaha ka akhrido waad mahadsantihiin inaydan kalsoonideeda haysan oo aad hawshan u daysaan dawladda hoose arrimaha maxaa kala socotaan idinku horta aryaro xisbiga wadani abaabulay oo xubno ka jira shirkooga anu kuma jawaabi karo laakiin anu waxaan ogahay shaqadani shaqo xukuumaddu qabanaysa maaha shaqo dawladda hoose qabanaysana maaha dawladda hoose maaha contractor wasaaraduna maaha contractor inta badan hadaad maqashan dawladdu shaqadeeda koobaad waa shuruucda iyo siyaasadaha iyo habraacyada diyaariso shaqadan cid qabanaysa process bay maraysaa shaqad baa la sameyn doonaa guddiga qandaraasyada qaranka loo gudbin doonaa cid baa ku guuleysan doonta process noocaas ay maraysaa institution kala duwan baana hawshan qaabilsan iyaro afar inan oo xisbiga wadani ka tirsan oo habeen la soo abaabulayna anuma oran karo waa kalsoonidii ummadda waad mahadsantihiin